السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كيني English Grammar Lesson 7 Part of Speech 1. maanta waxaynu eegaynaa kelmadda noun ayaynu aad u eegi doonaa kelmaddaas noun af Soomaali waa magac. marka waa maxay noun is a person of place meel things waxyaabo ama animal ama xayawaan. marka noun waxay noqon kartaa noun ama nouns. noun waa hal, nounsna waa plural. marka waxaynu eegi doonaa kelmadaha halkan ku qoran oo dhani waxa weeye nouns. kelmadaha oo dhani waa nouns. marka waxaynu eegi doonaa kelmadaheebaa nouna. Ahmed waa magac qof, waa noun. Father, aabo, man, nin, teacher, macallin, students, arday. intaas oo dhani waa magacyo ku saabsan qof. haddaynu eegno place ama meel af Soomaali, London, Park, Red Sea, Badda Cas, Muqdisho, province oo gobol af Soomaali ku ah oo gobol waddan ah ku yaala, waa kelmada noun ah oo ku saabsan place. hadda waxaynu eegi doonaa things oo animal ama waxyaabo ama xayawaan. Chair, kursi, horse, faras. Door, albaab. Sheep, ari ama ari. Bed, sariir. shanta kalmadoodna waxay ku saabsan waa kelmadaha ama thingska waxyaabaha ah ama xayawaanka ah. مثلا horse and sheep waa xayawaan oo kale laga soo qaadi karaa. marka nountu kelmadahaas oo kale ayayna ku kooban tahay. imankana waxaynu eegi doonaa qaybta labaad ee casharka ah. marka hadda waxaynu eegi doonaa nountii oo laba u kala baxday: common noun, general, proper noun, specific. common noun waxa weeye magac guud. proper noun-na waa magac khaas ah. aynu halkan hoosta ku eegno waxay kala yihiin common noun iyo proper noun. haddii aynu nidhaahno people, dad, waa magacaas waa people waa magac guud. cali haddaynu nidhaahno cali waa magac qof u khaas ah. sidoo kale language, luqad, language waa magac guud. Arabic iyo Somali waa afaf u khaasa Soomaali iyo Carab. City, magaalo. Muqdisho, London waa magaalooyin khaasa kuwaasina. Sea waa bad, badahoo dhan waxaa la wada yidhahdaa sea, bad. Red Sea waa bad, Red Sea waa hal bad, waa magac u khaasa Badda Cas. Month, bil. October waa bisha 10aad. University, jaamacad. Oxford University waa jaamacad khaasa taasi. Day, maalin. Saturday. Road waa dariiq. iyo haddaynu nidhaahno Madina Road waa bil waa waddo u khaasa magaalo. Doctor iyo dhakhtar, magacaas dhakhaatiirtoo dhan baa la wada yidhaahdaa dhakhaatiir. laakiin haddaynu Dr. Axmed shakhsi gaar aynu ka hadlaynaa. labada kelmadooda ugu dambeeya river waa webi iyo river Nile. waa hal baa jira river Nile la yidhaahdo Masar ku yaala. Country waa waddan. England waa waddan khaasa weeye. marka imikana waxaynu eegi doonaa qaybtii ugu dambeysay casharka oo dhowr kelmadood oo noun ah oo sentence aynu isla eegi doonaa oo example ah. Nouns in sentence. Common nouns. All the boys like football. wiilashoo dhani waxay jecel yihiin kubadda. waa common noun. Boys waa common noun. Ahmed likes football. Ahmed waa shakhsi gaar ah, wuxuu jecel yahay kubadda. I go to university. I go to university. waxaan tagaa jaamacad. I go to London University. Specifically London University baan tagaa. khaas ahaan waxaan tagaa jaamacad khaas ahaan London University. marka sentence-ka ugu dambeeya, which country are you from? waa su'aal. Which country are you from? waddankeebaad ka timi? I am from Somalia. marka saddexdaa kelmadood waxay noqonayaan common nouns oo waa magacyo guud
saddexdan asaas waxay ka bilaabmayaan capital xarafka horeeya waa capital letter marka iyaguna waa proper nouns marka I hope inay imanka idin kala cadaatay waxa common noun iyo proper noun yihiin iyo waxay noun tahay guud ahaan noun waa magac qof waa magac meel waa magac waxyaabo ama xayawaan afartaas ayay noun ka kooban tahay waa magacyadaas oo dhan ayaa noun la isku yiraahdaa marka intana casharkeena daba ku kulmi doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته